السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنان جلالي وقناعسة مصاري وانك اسكالي هوتيلada silsiladaha ee lagu magacaabo Helnaan International Hotels. qisada guushiisa waxa moodaa sheeko berley laakiin waa xaqiiqo inuu Canaan soo halgamay isla markaana soo maray dhibaatooyin qariib ah. haddana yahay mid ka mid ah tujaarta ugu weyn dalka Masar. Canaan ayaa ku fashilmay waxbarashada kadib markii uu ku dhacay imtixaanka dugsiga sare. maqaayadaha ayuu suxuunta u meeri jiray kadibna waa kan hadda noqday milkiilaha hoteelada silsiladaha ah ee Helnaan International Hotels. wuxuu ku dhashay Canaan Jalaali magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. wuxuu ahaa aabihiis sargaal ka tirsan ciidanka. wuxuu Canaan caruurnimadiisii aad u nacbaa waxbarashada, nacaybkaas oo ku keenay in uu dhowr jeer ku dhaco imtixaanka. markii dambe wuxuu dhacay imtixaanka dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad, taas oo sababtay in Canaan laga naco guriga isla markaana loo arko qof nolosha ku fashilmay. Canaan ayaa dareemay inuu culaab ama dulsaar ku yahay reerkooda, kadibna wuxuu go'aansaday inuu u safro qaaradda Yurub. Canaan ayaa ka safray magaalada Qaahira asagoo sii maray mid ka mid ah magaalooyinka Masar ee dhaca xeebaha, halkaas oo ka raacay markab siday dalxiisayaal reer Yurub ah. Canaan wax kama garanaya afafka looga hadlo wadamada Yurub, sidoo kale wax asxaab iyo qaraabo ah uma joogaan Yurub. markii uu tagay magaalada Vienna wuxuu la degay koox dhalinyaro ah oo guri u kiraysan yahay. 2 maalin kadibna wuu ka tagay sababtoo ah ma haysto lacag uu guri kiradiisa isaga bixiyo. aakhirkii wuxuu helay guri loogu talagalay in ay jiiftaan shakhsiyaadka hoyla'aanta ah. koox saaxiibadii ah oo Canaan ku noolaa guriga ayaa u soo helay shaqo. talow maxay tahay shaqada? waa shaqo joornaal iibin ah, waayo Canaan ma ahan qof wax soo bartay oo xirfad leh. joornaalada ayuu ku wareejin jiray wadooyinka magaalada Vienna. kadib wuxuu isaga tagay shaqadii oo wuxuu bilaabay inuu raadiyo shaqo kale. wuxuu shaqo saxoon dhaqid ah ka helay mid ka mid ah hoteelada, laakiin 2 usbuuc kadib waa laga soo ceyriyay shaqadii kadib markii uu ilaalin waayay waqtiga iyo ballamaha. taasi waxay u noqotay cashir ku qasbay inuu hadda wixii ka dambeeyay ilaaliyo ballamaha iyo waqtiga. markii uu baagamuudo noqday Canaan wuxuu maalintii cuni jiray 1 xabo oo ukun ah oo aan la karinin, sababtoo ah ma haysta lacag uu ku soo iibsado cunto ku filan. wuxuu bulshada kala kulmay ixtiraam la'aan, waayo waa qof koyta ah oo aan afka waddanka garanaynin, jaahil ah oo aan lahayn xirfad sare. Canaan oo ku rafaasan Vienna ayaa aabihi wuxuu la soo xiriiray safiirka Masar u fadhiya Vienna, wuxuuna ka dalbaday inuu caawiyo wiilkiisa ama uu ku soo celiyo dalka Masar. safiirka ayaa u yeeray Canaan wuxuuna ka dalbaday inuu ku laabto dalka, laakiin Canaan wuu u diiday codsiga safiirka. wuxuuna ka codsaday inuu soo saaro fiisaha Denmark. waxaa u suura gashay Canaan inuu helo fiisaha Denmark. wuxuu galay caasimadda Denmark ee Copenhagen, laakiin waa uu waayay shaqo. Canaan waxaa qabsatay kudka guur oo qanjo u guur. Vienna ayaa u dhaantay Copenhagen. halkaani ma laha guri uu dego, waayo ma iska bixin karo kirada guriga. waxaa guri u ah oo jiiftaa gidaarada iyo kiyosida telefoonada laga dirsado ee ku yaala wadada dhinaceeda. wuxuuna ka quudan jiray qashin qubka. Canaan ayaa bilaabay inuu ku soo wareego magaalooyinka Denmark si uu shaqo u helo. aakhirkii wuxuu shaqo saxan meyrad ah ka helay mid ka mid ah hoteelada. wax lacag ah kuma qaadan jirin shaqadaas soconaysa 8 saac. waxa ku kalifay ayaa ah inuu helo khibrad wanaagsan oo lagu qadariyo shaqooyinka dambe. dhowr sano kadib ayuu shaqo kabalyeernimo ah ka helay mid ka mid ah hoteelada, kadibna wuxuu la wareegay xafiiska maamul ku-xigeenka hoteelka. waxayna da'diisa ahayd 23 sano jir. intuu 30 sano gaarin waxaa laga dhigay maamulaha mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada Copenhagen. markii uu gaaray 32 sano jir ayuu aasaasay shirkadiisa hoteelada ee lagu magacaabo Helnaan International Hotels. hadda wuxuu hoteelo qaali ah ku leeyahay dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah caasimadaha wadamada Yurub. mar uu hadlay Canaan wuxuu dhalinta ku booriyay inay ku dadaalaan sidii ku heli lahaayeen khibrad wanaagsan, sababtoo ah khibradda waa furaha guusha.